markaa waxa dhacday aan sameeyay alxamdulillah horta imtixaankii sidii baan ku galay waa ku guuleystay ICD baa markaa shaqada ka bilaabay oo International Cooperation for Development marka waxa jeclay idin wadaago shaqadeedii ugu horeysay ama may task wixii koobaad ee la ii diray shaqadaasi maxay ahayd waxa la ii diray gabadhii baa xafiiskaygii bay tustay waxay ku tiri xafiiska waa kan computerkaagii waa kan printerkaagii waa kan kabarka faylasha ku jira adaa iskale waa hawshan ka shaqeyno waxay ku tiri markaa maanta waxaad qabanaysaa ama week inta lagu jiro waxaad qabanaysaa faylasha yaala faylasha ku jira kabarkaas waxaad u nidaamisaa sida soo socota kow waxaad mashaariicdii guuleystay ee aanu bixinay marka grantis baan bixinay mashaariic yar oo waxaan NGO-yada ayaa lagu taageeri jiray kuwii guuleystay filing ku samee kuwii guul dareystayna filing u samee kuwa pending ah ee ay tahay in dib loo eegana filing iyagna u samee shaqada ba ninkan garanayo ku adag tahay Soomaa inantii marka waxaan ku intan ba nin jaamiciyo halka ka xiran baan hayo marka waxaan isla tahay maxay kuugu dirtay faylashan iyo wax may wax cajiib ah deetana hawshii baan bilaabay faylashii ay tiri saddex shaqo shaqeyn saacado kooban oo 5 saacadood ah marka xoog baan ahay oo waan dhaqaajinaya ayaan faylashii ku nidaamiyay marka faylal cusub ay keentay oo ka tiri Cabdirsaaq faylashii waa kuwan ka shaqeyn dhamaystir waan habeeyay waxaan ka fikirayaa in report ka diyaariyo faylasha computerkii waan dul baxay oo report baan qoray 1 page iyo badin waxaan filayaa on leeyahay intaasoo file bay ahaayeen intaasoo mashaariic successful way guuleysteen kuwaasi way dhaceen kuwaasi waa pending maxaa xiga aan diyaariyay faylashiyo deetana aanan rasaynin oo saayooda dulsa u yaala miiskii ay gabadhii soo gashay gabadhii waxay markii soo gashay waan xasuustaa inanta Yvette Lopez balorene Filipiniyad bay ahayd bay qayla ku dhufatay hadda qayla leedahay Cabdirsaaq waa maxay waxani bal waxaad sawirataan hadaba shaqa aad ku cusubtood maantum saakon bilowday booskaagii intuu ku soo hor istaagay qaylaha ku dhuftaa ku yiraahdo waxaad samaysay waa maxay bal hadda halkaas dhiga arinku waan marka waxa hadii maalinka wuxuu laga qali lahaa qayb kamid ah wadnahayga dhaawacii soo gaadhay ilaa imika lahu ku yaala because simply waxaan filahay armaabada arinkan u noqdaaba shaqadaada kii galaafan lahaayo lagu eri lahaaba ilan CV baan soo qortay hada xasuusno nin soo shaqeeyo balaayo oo ayaa halka igu qoran arinkii way igu adkaaday markay aragtay gabadhaasi runtii aad baan hortay ilaa imika gabadhaas kamay bixin qalbigayga qof wanaagsan ayaa ahayd una sabab noqotay inaan horumar badan sii sameeyo markay aragtay wajigayga la markaad naxdo wajigaagu wuxuu noqdaa nin madooba koleyska malaha waan cadaaday ma garan karo ma xasuusan karo macnaha sidoo wakaada laakiin iyadu markay aragtay waxay aragtay inaan aad u naxay dabcan deetana hadalkaygii bay ka qoomamaysay markaasay ku tiri Cabdirsaaq okay markaa maxaa dhacay ma oran war hadal bay ku soo bixi waayay it's okay Cabdirsaaq show khaladka dhacay wax kale ma baahayne ku dhiibi kara faylkii waan hayaa faylku waa kan exactly kan oo kale waxa waraaqaha lagu ridayna kuwan oo kale haayeen simple bunchkan waan isticmaalay bunchkan markaad isticmaalayso xeerar baa jira bunchkan markaad isticmaalayso xeerasha jira waxa weeyaan warqadan markaad doonaysid inaad samaysid inaad faylkan aad ku ridid waxa shardi ah marka koobaad inaad isku miisaanto aad isku miisaanto deetana aad hesho centerka markaad hesho waxa ku soo baxaya halka macnaha ay warqadaas ku dambal ay ku noqonaysaa laba slaag ay ka noqonaysay bunchkani waxa uu leeyahay meel calaamad kala badh ah oo ku taala gudaha bunchka taas markaa ay tahay inaad la eegato xariijinta ku soo baxday marka dalooliso marka waxa ku soo baxaya maxay warqad labada dhinac isleegihiin saasaad ugu qoraysaa way noqon weyday
كلفتركيسابا قياس A4 iyo A5 u diyaarsan yahay waad ku qiyaasan kartaa aniga Cabdirasaaq ahaan waxaan kooba ima bilownaba warqada faylka waan soo qaadaa waan galiyaa faylkii markaan ku guray faylka shaw wuxuu yeeshay faraaqi oo afar xaashadood halka ka baxay 8 kilo dhinacan u baxay waxa fool xun oo saa ku soo eegaya ay shaw inantu ka naxday leedahay waa maxay Cabdirasaaq waxaad sameysay marka arinkii deetana intan marka aan idin tusay عشركاس إيدكته مكذا first lesson أن قاتو كاسوها وحن وقدر لهن عن هالكا تصالها إذن كسينا يا وحويان شقاد مركا شام عدد كبحثو not necessarily in everything أتقانو شقاد الرسمي جد وقتها يسوي حفيز أد بيوجد وانتهي مركا أد بوقت وحكا ديجانيسو طبعا كونا لجمه هلو practical لجمه هلو meelaha wax goobaha wax lagu dhigto marka waxaan balyeynaa